Assalaamu calaykum. Waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabto. Maanta waxaan samayn doonaa project aad u wanaagsan. Projectigan waxaan samayn doonaa movie application. Waxaan isticmaali doonaa API oo laga soo gaabiyey application programming interface. Projectigan wuxuu noqon doonaa project u wanaagsan portfolio inaad dhigato. Sidoo kale aad ka hesho experience ku saabsan React.js. Ka hor inta aan ka hadlayn projectigan waxyaalaha aad ku baranayso, ugu horeyn aan overview idinka siiyo sida uu projectigan u ekaanayo. Okay, waxaan halkan ku haysanaa logo ay ku qoran tahay movie. Halkan waxaan ku haysanaa input search movie by name ah. Halkan waxaan ku haysanaa button ay ku qoran tahay search. Haddii aan hover gareyno waxaan arkaynaa background colorkiisa inuu noqonayo white, colorkiisana black. Headerkeena kaliya waxaan ku haysanaa intaas. Halkan waxaan ku haysanaa cards oo ah API-gii aan soo fetch gareysanay. Waxaan ku haysanaa image, name-ka movie-gan ama filimkan, iyo weliba sanadkii la soo publish gareeyay filimkan. Okay, dhammaan datadan waa API. Halkan waxaan ku haysanaa box shadow gray ah, lehna border radius yar. Haddii aan hover gareynayno waxaan arkaynaa inuu yaro sare u kacayo. Waxaan ku haysanaa ilaa 3 item oo itemyadan waa itemyada API-ga laga soo fetch gareystay. Dhammaan waxaan soo fetch gareysanaynaa film walba magaciisa. Okay, this is our home page. Waxaan awoodnaa inaan search gareyno film alla filimka aan doonayno. Tusaale kale waxaan search garey karnaa Spider-Man. Waxaan arkaynaa all Spider-Man movies oo ah film walba magaciisa, sanadka la soo saaray, Amazing Spider-Man year 2012. Waxaan search gareyn karnaa Iron Man and we see all Iron Man movies. This is cool. Waxaan search gareyn karnaa India movies and we see all Indian movies. Waxaan search gareyn karnaa American movies. We will see all American movies. Film waliba wuxuu wataa magaciisa iyo sanadkiisa. Okay, let me search a film aan kula talaa inaad daawataan. Waxaa loo yaqaanaa social network. This is it, social network. Filmkan waa film special ah, waxaa la soo saaray 2010. waxaa laga sameeyey ninka loo yaqaano Mark Zuckerberg. waa film in badan ku anfacayo. Okay, that's all we're gonna build it now. Haddii aan idiin sheego waxyaalaha aad ku baranayso projectigan, ugu horreyn waxaad baran doontaa waa maxay API, sidee data looga soo fetch gareystaa website kale, sidee loo adeegsadaa assign and await function, waa maxay use state, sidee se u shaqeysaa. Sidoo kale waxaad baran doontaa use effect. Use state, use effect waa laba hooks ee muhiim ah React.js. ugu dambeyn waxaad baran doontaa sida API-ga aad soo qaadatay loogu filter gareeyo search bar-ka. oo waxaan hadda arkaysa inaan search gareyn karno film alla filimka aad doonayno, kadibna uu inoo soo baxayo. Search bar filter waa mowduuc aad u muhiimsan. Sidoo kale API-ga waa la mid. Use state, use effect iyaguna waa laba hooks oo aad u wanaagsan. waxaan rajeynayaa projectkan inuu yahay project special ah. waxay ugu qaadatay waqti dheer inaan sameeyo project soo koobayo dhammaan skillskaas iyo tiknoolajiyadaas. waxaan ka codsanayaa inaad igu caawiso like and subscribe si markaasi ay igu dhiirigeliso inaan sameeyo cashiro badan, oo waxaa iga baxa waqti dheer samaynta cashiradan. haddii aad diyaar tahay waxaan u guda geli doonaa inaan dhisno projectigaas. Let's go. ugu horeyn waxaan samayn doonaa React application-keena inagoo adeegsan doonaa terminal-keena. waxaan tegaynaa terminal-keena. haddii aan qorno git bash waxaad tegi kartaa hadba terminalka aad isticmaalayso. aad isticmaali kartaa PowerShell, Windows terminal. For now aniga waxaan isticmaalayaa git bash ay leedahay git. sidaa daraaddeed waxaan tegayaa git. alright, hadda waxaan ku suganahay userkayga. waxaan doonayaa inaan tago
folder ama directory-ga desktop. Si aan u tago waxaan leenahay change directory, waxaan tegaynaa desktop. haddaan intaas ku siinto oo tab tiraahdo asigaa si automatic kugu dhamaystiri doonaa. Okay, enter. hadda waxaan joognaa desktop. halkan baan ku generate garayn doonaa application-keena. si aan ugu generate garayno waxaan leenahay mbx create react app. intaas kadib waxaad sheegaysaa magacaad u bixin doonto application-kaada. for now waxaan u bixinaynaa movie app. uma dhexaysiin kartid space, sidoo kale letterska ama characterska aad qorayso kama koobnaan karaan wax capital ah. enter. wuxuu inoo generate garayn doonaa application-keena. waxaa laga yaabaa inay qaadato waqti dheer balse waan iska sugi doonaa. alright, waxay qaadatay waqti yar inuu inoo dhammaado balse waxaa laga yaabaa adiga waqti dheer inay kuu qaadato. waxay ku xiran tahay hadba computerka aad isticmaalayso performancegiisa iyo speedkiisa. okay, ka hor inta aanan markaasi aanan dhihin npm start waa inaan furnaa filekan movie app. si aan u furno waxaad leedahay cd movie app. hasaad tab dhahdo isagaaba kuu dhamaystiraya. enter. hadda waxaan joognaa folderkii aan ku generate garaynay react application-keena. ka hor inta aanan local hostiga ku furin waxaan ku furaynaa markaasi visual studio code. waxaan leenahay code dot. wuxuu inoogu furayaa visual studio code. okay, here we are in visual studio code. aan weyneyno. okay, waa kan markaasi folderkii aan sameynay iyo react application-kii aan ku generate garaynay. ka hor intaan waxba ka bedelin aan ku furno local host. waxaad tegaysaa terminalkaada. waxaan leenahay npm start. wuxuu inoogu furayaa local host. okay, okay, here we are in react application. waxaan iska deleedaynaa faylasha unnecessary aanan u baahnayn. ugu horeyn haddii aan furno folderkan ay ku qoran tahay public, waxaan deleedi doonaa loogadan iyo weliba loogadan. waa iyadoo yar iyo iyadoo weyn. waxaan kaloo deleedi doonaa robot.txt. delete. okay, halkaas ugu soo baxano folderkeena publicta. haddii aan tagno src-deena ugu horeyn waxaan deleedi doonaa index.css. waxaan kaloo deleedi doonaa logo.svg. waxaan deleedi doonaa service workers. waxaan kaloo deleedi doonaa app.txt. delete. okay, haddii aan tagno app.js-teena dhammaan waxyaalahan waa iska tirtiri doonaa. keliya waxaan soo ritaa garaynaynaa h1 aan ku qorno hello react example. okay, aan iska deleedno loogadan aan hore u deleednay. save. haddii aan tagno app.css-teena waxyaalahan waa iska tirtiri doonaa. haddii aan tagno index.js aan iska tirtirno commentigan. sidoo kale aan iska deleedno index.css sababtoo ah already waan delete garaynay. okay, let's see now. alright, here we see hello react. waxaan doonaynaa titlekan react app ah inaan u bedelno movie application oo ah titleka application-keena. we go index.html. aan tegaynaa halkan ay ku qoran tahay react app. waxaan ku bedelaynaa movie app. save. awesome. okay, aan iska xirno dhammaan tabiskan. alright, hadda waxaan soo upgrade-sanay react application-keena. waxaan bilaabi doonaa inaan ka shaqeyno projectskeena. ugu horeyn waxaan ka bilaabi doonaa src-dan gudaheeda inaan sameyno folder aan u magac dari doono components. okay, folderkan componentska waxaan gashan doonaa dhammaan componentyadeena. ugu horeyn waxaan ka bilaabi doonaa movies no spelling ansaxo movies.js. okay, waxaan dhahayaa rfce
si uu ugu generate gareeyo functional component. Okay, halkan waxaan soo return gareynaynaa keliya h1 aan ku dhex qorno movies. Okay, hadda haddii aan fiirino inooma shaqeynayaan, keliya waxaan arkaynaa react hello react. sababtu waxay tahay kumaynan import garaysanin filekeena appka oo ah main component. Okay, aan tagno app.js, halkii aan h1 soo return gareynaynay aan soo return gareyno movies. isagaa si automatic noogu soo import gareynaya slash save, and here we see movies. Okay, waxaan ugu horeyn doonaynaa inaan datadii aan kasoo fetch garaysano API. si aan ugu soo fetch garaysano waxaan adeegsanaynaa ugu horeyn use state. use state waxay ka imaanaysaa react. si aan ugu horeyn u helno use state, halkan waxaan ku darsanaynaa use state oo iyaduna waxay ka imaanaysaa from react. si aan u isticmaalno use state waxaan sameynaynaa const, waxaan qoraynaa array structuring. Okay, waxaan halkan ku qoraynaa labo item. itemka koowaad waa value-ga initialka ah uu yeelanayo state-kaada. itemka labaadna wuxuu noqonayaa value-ga aad u update gareynayso state-kaada. Okay, aan isla aragno. tusaale kale waxaan leenahay movies, waxaan kaloo u baas gareynaynaa set movies. inta aan capital ka dhigno maybe. Okay, waxaan dhahaynaa ha la mid noqdaan use state. ugu horeyn waxaan ka dhigaynaa empty array. Okay, haddii aan in yar aan dul istaagno waxaa use state ay tahay value-gan waa value-ga initial state-ka ah uu yeelanayo halkan. aan tusaale yar usoo qaadano use state, waxaan soo qaadanaynaa tusaale yar oo use state ah. aan iska tirtirno movieskan, control D, aan ku bedelno number. Okay, numberka initial value-ga uu noqonayo ha noqdo 0 haddaan dhahno safe aan dhahno, oo iminka value-ga uu horeeya numberkani uu yeelanayo waa 0. si aan u aragno halkan h1ta hoosteeda aan kusoo return gareyno paragraph. paragraphkan ha inoogu dhex qormaan numberkaas waxa ku guda jira. save, aan fiirina hadda waxaan haysanaa 0. waxaan doonaynaa 0gan inaan update gareyno. si aan u update gareyno waxaan ka dhigaynaa numberkii unbaa waxaan leenahay set number. haddii aan halkan nimaadno aan sameyno buttonkan waxaan dhahaynaa change number, maybe ha inoola mid noqdo. waxaan leenahay on click, mar walba oo click la siiyo waxaa inoo wacdaa functionkan aan u bixino change number. hadda functionkan ma aanan sameynin, halkan aan ku sameyno. waxaan leenahay const change number ha inoola mid noqdo arrow function. functionkan extend waa maxay? functionkan keliya waxaan numberkii initialka aan haysanay aan u bedelaynaa. waxaan leenahay set number, numberka waxaad ka dhigtaa numberkii aad hore u haysatay +1 keliya. save, maxaan sameynaynaa? waxaan sameynaynaa numberkii aan hore u haysanay oo ahaa 0 keliya waxaad ku dartaa 1. sidaa daraaddeed markii buttonkan click lagu siiyo numberka 0 ah waxaa mar walba ku darsamaya 1. sidaa darteed wuxuu noqonayaa 0 1 2 3 4 ilaa infinite. aan fiirino nothing is not displaying, but why? aan fiirino. Okay, functionkan ma aha callback function. save. alright, hadda waxaan haysanaa titlekeen markii laga soo gudbo numberkii initialka ah oo ah 0. waxaan kaloo haysanaa button. haddii aan buttonkan ku dhufano numberka wuxuu isku bedelayaa 1. haddii aan ku dhufano wuxuu isku bedelayaa 2 3 4 5 6 ilaa infinite. sababtuna waxay tahay waxaan mar walba update gareynaynaa value ku jira halkan. Okay, waxaan rajeynayaa use state aan isla fahanay. aan isla ka tirtirno waxyaalahan oo dhan, paragraphtan aan iska tirtirno iyo buttonkanba. Okay, halkan marka meeshii numberkeed aan ku bedelno iyadana movies. initial value-ga uu yeelanayo aan ka dhigno empty array. Okay, waxaan ugu horeyn soo qaadan doonaa API. si aan API-gaas aan usoo qaadano waxaan tegaynaa website
loo yaqaano markaasi OMDB. waa maxay Google waxaan ay kusoo dareen omdbapi.com. haddii aan ku dhufano linkiga ugu horeeyo waxaad arkaysaan dashboard sidaan ah. waa API, wuxuu ku siinayaa APIs free ah. haddii aad fiiriso usageka sida loo adeegsanayo waxaad u baasgareyn kartaa parameter. qaybta searchiga ahna parameterka u baasgareynayso wuxuu noqonayaa s. kadib waxaad raacinaysaa magaca aad search gareynayso. okay, haddii aan tagno API case waxaad tegaysaa qaybtan freega ah. kadib waxaad gelinaysaa emailkaada, magacaaga iyo weliba last namekaaga. halkan waxaan gelinaysaa use. haddii aad iska geliso kale react app, ani already waan dirsaday oo waan haystaa. waxaad dhahaysaa submit. waxaan aniga dhahayaa the key has already been assigned to that email. balse adiga wuxuu kusoo dirayaa gmail. okay, wuxuu kusoo dirayaa gmailkan, wuxuu ku siinayaa your case iyo weliba wuxuu ku siinayaa API linki. ugu horeyn waxaad u baahan tahay inaad click ku siiso linkigan si aad u activate garayso API-gaaga. click ku sii. and already way activate garaysaya, balse adiga wuxuu ku dhahayaa API activated message noocaas oo kale ah. intaas kadib waxaad soo qaadanaysaa linkigan. haddii aan linkigan soo copy garaysano oon tijaabino linkigan inuu shaqeynayo in kale, labadan aan iska xirno. waxaan tegaynaa Postman Google extension. wuxuu ku siin waa extension Postman. Postman basically waxaa lagu jegarayaa APIs-ka. okay, aniga already wuu igu jiraa, wuxuu leeyahay launch app, balse adiga wuxuu ku leeyahay something add Chrome waxaas oo kale. okay, ani waxaan dhahayaa launch app. intaas kadib wuxuu ku keenayaa dashboard sidaan ah. linkigii aan wadanay baan ku paste garaynaynaa halkan. haddii aan paste niraano oon fiirino parameterka linkigan uu wato, waxaad arkaysaa inuu wato I, balse anagu ma doonayno I. oo waxaad arkaysiin website-ka inuu lahaa laba parameter s iyo I. waxaan dhahaynaa qaybta searchida waxaan qoraynaa s. okay, halkan value ku dhex qoranna waxaan ka dhigaynaa tusaale kale movie magaciisa. haddii aan dhahno war oo send dhahno wuxuu ina siinayaa JSON data. datadan JSON-ta ah waxay inoogu jirtaa API-gan aan haysano. okay, sidaa daraaddeed wuu shaqeynayaa. ugu horeyn initial aan u baas garayno datadan si tusaale ahaan datadan aan soo qaadano. kadib aan tagno appkeena meeshii empty array-ga ahayd aan ku paste garayno datadan. alright, save. okay, waxaana leeyahay movies waa magacooda, balse ilaa hadda waxaan u baas garayn. intaas kadib waxaan tegaynaa halkan, waxaan sameynaynaa component cusub. componentigaas waxaan u magac daraynaa movie list .js. okay, waxaan sameeyey folder, sorry, no, aan tagna halkan movie list .js. okay, haddii aan dhahno RFCE waxaan keliya soo return garaynaynaa for now. waxba sooma return garaynayno, keliya aan imaano halkan aan wacano componentigan aan sameynay. haddaan ku qorno halkan movie list aan caadi usoo import garaysano. haddii aan tagno halkan oon dhahno import movie list from movie list. okay, aan soo qaadano keywordkan, keliya aan imaadno halkan qaybta ritaanka ah aan soo return garaysano movie listiga. save. okay, intaas kadib movie listigan waxaan u baas garayn doonaa datadan aan haysano oo movieska ah. sababtaa waxaan sheegnay initial value-ga uu yeelanayo inay tahay movies. sidaa daraaddeed hadda movieskan waxaa inoogu guda jira dhammaan datadan oo ka kooban titleka magaca filimka, yeerka iyo weliba poster oo ah imageka filimka uu wato. inagu ma isticmaali doona type-gan iyo ID-gan, keliya waxaan ka isticmaali doonaa saddexdaas. alright, haddii aan tagna halkan waxaan as probis ugu baas garaynaynaa movieskaas. ha noola mid noqoto movies. haddii aad hover garayso waxaa arkaysaa inay ku jiraan dhammaan titlada. okay, kadib
waxaan imaanaynaa movie list waxaan aqbalaynaa probieskaas si aan u aqbalno waxaan tegaynaa functionkan parameterka waxaan dhahaynaa curly braces aqbal movies haddaan isticmaali karnaa markaasi movieskaas ugu horeyn waxaan ku dul wareegaynaa movieska waxaan leenahay movieskan aad haysato dot map each movie kastaana waxaad ka soo qaadataa aan soo return garayno maybe imagekan sourcigiisa waxaan ka dhigaynaa moviegan aan haysano dot poster save okay refresh waxba inooma soo baxayaan sababtuna waxay tahay probiskan aan u paste garaynay waa capital letter aan ka dhigno small letter save aan hadda eegno okay waxaan haysanaa imageska postiskaas hadda balse ma doonayno inay datada inaan sidaan u isticmaalno waxaanu doonaynaa inaan API-ga isticmaalno ka hor inta aan soo qaadanin API-ska waxaad arkaysaan datadan inaan ku dul wareegnay aan soo return garaysanay keliya image balse inagu sidaa ma doonayno waxaan doonaynaa movieskan gudihiisa inaan datada ku dul wareegno kadib datadaan usoo baas garayno halkan stylingkana uu halkan ka dhaco okay si aan u sameyno aan iska tirtirno waxyaalahan waxaan ku laabanaynaa movies component halkii aan movie listigan aan u baasti garaynaynay dhammaan movieska aan ka tirtirno movieskan waxaan tegaynaa halkan waxaan sameynaynaa class aan u magacdari doono dot movies classkan gudihiisa waxaan ku dul wareegi doonaa itemadan oo waxaan leenahay movieskan aad haysato dot map ku dul wareeg map oo basically ah higher method ee javascript leedahay waxaan u baas garaynaynaa parameter oo aan ka dhigi doono each movie film kasta waxaan soo return garaynaynaa return waxaan ku dhex qori doonaa class aan u magacdari doono movie classkan gudihiisa waxaan dhex dhigi doonaa componentigan save aan iska tirtirno waxyaalahan hadda waxaan datadeyni ku haysanaa halkan waxaan doonaynaa inaan halkan u baas garayno ugu horeyn waxaan u baas garayn doonaa posterkan kadib waxaan u baas garaynaynaa titlekan ugu dambeyn waxaan u baas garaynaynaa yearkan si aan ugu baas garayno waxaan imaanaynaa halkan as probis waxaan leenahay poster hala mid noqdo markaasi moviegan aad haysato oo parameterka aan u baas garaynay ah dot poster okay waxaan kaloo u baas garayn doonaa titleka iyadana ha noola mid noqdo imageka moviegan aan idhaahday aad haysato dot title okay ugu dambeyn waxaan baas garayn doonaa year waxaan dhihi doonaa year ha kula mid noqdo moviegan aad haysato oo parameterka aan u baas garaynay ah dot title save waxaan tegi doonaa halkan movie listigeena waxaan aqbali doonaa halkii aan movie ka aqbalin waxaan aqbali doonaa probiska loo yaqaano poster waxaan aqbali doonaa probiska ah title waxaan kaloo aqbali doonaa probiska ah markaasi year alright haddii aan halkan nimaadno waxaan samaysan doonaa class aan u magacdari doono movie list classkan gudihiisa waxaan ugu horeyn dhex dhigi doonaa imagekan waxaan leenahay sourcigiisa ha noqdo posterkan waxaan dhahaynaa poster just like that intaas kadib waxaan u samayn doonaa qayb bottom ah haddaan ku darno class aan u bixin doono bottom classkan waxaan sii dhex dhigi doonaa class loo yaqaano descriptionkan waxaa dhex gelaya markaasi h3gan waxaa inoo dhex gelaya titlekan oo waxaan dhex gelinaynaa maybe name ha la mid noqdo span aan dhex gelinaynaa sababtoo ah waxaan doonaynaa colorka inuu grey noqdo span waxaan dhex dhigaynaa spantan gudaheeda titleka awesome intaan leedahay soo koobi garaysano oo waxaan rabnaa yearka haddana halkan waxaan ka dhigaynaa year
waxay noola mid noqda markaasi year. Save and let's see now. Okay, waxaan haysanaa sawirka movie-ga ama filimka iyo weliba magaciisa oo filimka hadda magaciisa waxaa la yidhahdaa Avenger Infinity War, yeerkana waa isla Avengers. Why? Okay, movie title halkaa usoo baas gareynay waxaa laga rabaa year. Save. Okay, waxaa arkaysaan magaca inuu yahay Avengers Infinity War, sanadkii la soo publish gareyna uu yahay 2018. kana waxaa halkaysaan Captain America in la yiraahdo sanadkiisuna uu yahay 2016. waxaan soo koobiyeynaynaa dhammaan styling-keena sababtoo ah marabno styling-ka waqti badan inuu inooga baxo waxay qaadanaysaa waqti dheer inaan styling-ka sharxo sidaa daraadeed waxaan ku paste gareyn doonaa halkan. Save. waxaan tegayaa movie component halka uu koreyso waxaan soo import gareysanayaa app.css tan. Okay, import app. Save. halkii hore waxaad u baahneed inaad app.css dhahdo balse hadda ma u baahnid haddii aadan raacin keyword oo from aadan dhihin wuxuu garanayaa inay tahay css. Awesome. haddaan halkan la soo koobiyeysano oon tagno movie list iyadana paste. Save and let's see. waxaad arkaysaa inay yaryaraadeen wixii dhammaan sababtoo ah cardiskan basically waxaa loogu talagalay in 3 xabba ay degto. haddaan tijaabino halkan movieska aan tagno keliya aan soo duplicate gareysano datadan 1 2. Save. Okay, what is the issue? waxaad arkaysaan h3-ga in width uu leeyahay sidoo kale h3-da kale ay iskugu dhis yihiin si markaasi h3-dan haddii aan tagno styling-keena waxaad arkaysaan h3-ga in width-geeda aan la mid dhignay 310 pixel. sidaa daraadeed waxaan tegaynaa movie list meeshan h3-da ah unbaa waxaan ku bedelaynaa h4. no, h4. Save and it works. Alright, there we go. waxaan haysanaa image-kan oo ah JSON data inoogu jiray oo ah posterkii aan soo qaadanay waxaad arkaysaa inay isu egyihiin sababtoo ah keliya hal data un baan soo duplicate garaysanay. hadda ma haysano API-ga caadiga datadan waxaan u adeegsanaynaa si example ah. Okay, halkan waxaan ku haysanaa title ay ku qoran tahay Avenger Infinity War. waxaad arkaysaan colorkiisa inuu gray yahay, box shadow uu yeeshay, dhinaca sare oo uu yara kacayo. dhammaan waxyaalahan oo kale waxaan ku haysanaa CSS-ka. haddii aan CSS-ka in yar sharxo ood fiiritaan CSS-ka header-kan iyo button-kan waxaan ka samayn doonaa dib. haddii aan movies-kan u imaado waxaan sameynaynaa in movies-ka aan isgarab dejino. display flex wrap oo markii lasoo yareeyo waxaan doonaynaa inuu wrapping sameeyo markii lasoo yareeyo inuu si automatic isku soo yareeyo si uu u noqdo markaasi mid responsive ah. Okay, justify content waxaan leenahay space around oo markaasi waxaan doonaynaa dhinacaha inay kasoo durgaan. Okay, movie listiga oo ah kana oo aan ku haysano image-ka iyo description-ka waxaan leenahay isiguna waxaad sameysaa flexigiisa intuu degayo waxaad ka dhigtaa image walba 26%. waxaa dhinaca sare kasoo durjisaa 30 pixel, left iyo right na 20 pixel. waxaan u yeelaynaa box shadow. image-kana waxaan ka dhigaynaa cursorkiisa pointer, width-giisana 460 pixel, height-kiisana sidoo kale. border radius yar baan u yeelaynaa 10 pixel ah. waxaan leenahay image listiga movie listiga dhammaantiis markii la hovergareeyo waxaan translate garaynaa qaybta y-ga ah. qaybta y-ga basically waa up iyo down. waxaan translate garaynaa qaybta up-ka ah -7. sidaa daraadeed marka la hovergareeyo wuxuu aadayaa sare. Okay, waxaan ku daraynaa transition si uusan si xawliya uu markaasi kor u aadin isla markiiba. Okay, description-kan waxaa inoo guda jira markaasi title-keena iyo sanadka filimkan soo publish garay. waxaan dhahaynaa isgarab deji, justify content space between si ay u kala durkaan. padding yar baan ku daraynaa markaasi dhinaca leftiga ah. font family-giisana waxaan ka dhigaynaa sans serif. h3-ga iyada width-geeda waxaan ka dhigaynaa 310 pixel sababtoo ah waxaa jira images title dhaadheer leh marna width-gooda inuu weynaado card-ka. Okay, span-ka iyadana color-keeda waxaan ka dhigaynaa gray. Okay,
inta kalena waa headerkii iyo buttonskii search barta markeeda ba arki doonaa. Okay, that is all what we have. That is the basically API. waxaan doonaynaa in API-ga linkiga aan wadana aan tagno. Okay, waa kana linkiga markaasi aan soo copy garaysano. waxaan imaanaynaa halkan haddii aan iska yareyno intaan aan comment u sameyno waxaan leenahay paging API. Okay, paging sidaa looma qoro, paging API. intaas kadib waxaan sameynayaa markaasi function aan u magac dari doono get API maybe. Okay, get API ma aha magac qurux badan laakiin waa caadi. hala mid noqdo arrow function. ugu horeyn waxaan sameyn doonaa variable URL la dhaho aan dhex dhigi doono markaasi URL-kii aan haysanay. Okay, intaas kadib waxaan rabnaa URL-kan inaan soo fetch garaysano. si aan usoo fetch garaysano haddana waxaan sameynaynaa variable kale. variable-kan waxaan u bixinaynaa maybe response. Okay, hala mid noqdo fetch URL-kan aad haysato. Okay, hadda waxaan soo fetch garaysanay URL-kan datadii ku jirtay, balse waxaan doonaynaa datadan inaan u bedelno JSON. si aan ugu bedelno waxaan haddana sameyn doonaa variable kale aan u magac darno maybe response JSON. Okay, hala mid noqdo response-dan aad haysato leh dot waxaad u bedeshaa JSON. Okay, I hope this works. hadda haddii aan ku dayno markaasi functionkeena sidan oo aan wacno oon dhahno waxaad inoo wacdaa get API on save dhahno wuxuu inoo soo saarayaa empty. haddii aan console ka tagnana waxaan helaynaa error sidana. waxaa la leeyahay response JSON is not a function at get API at movies. waxaa la leeyahay function ma aha. sababtuna waxay tahay datadan functionkan waa function local ah, balse inaga waxaan doonaynaa inaan data soo fetch garaysano. sidaa daraaddeed waxaan doonaynaa functionkan inaan u bedelno assign and await function. si aan ugu bedelno waxaan tegaynaa halkan waxaan qoraynaa ugu horeyn assign. halkan qaybta fetch-ka ahna waxaan doonaynaa inaan sugno waxaan qoraynaa await. Okay, response-da iyadana waxaan leenahay await. for now haddaan save dhahno waxaan haysanaa datadaas. haddii aan console logga aan ka soo saarno markaasi response.json tan waxa inoogu guda jira response JSON save. Okay, waxayna leeyahay response JSON is not function. sababtu maxay tahay? sababtu waxay tahay response-dan ma aha capital letter. save. Okay, waxaan iska ignore garay sababtoo ah wuxuuna leeyahay markaasi listi kasta waa inuu leeyahay key props ama ID si markaasi isugu qaldin. iska ignore garay waa waanin caadiya. Okay, haddii aan fiirino array-dan aan furno waxaan arkaynaa response-da inay tahay true oo serverku wuu inoo soo jawaabay. search-dan haddii aan furno waxaan ku haysanaa array fara badan oo ilaa 9 ah oo movies ah. waxaan doonaynaa keliya search-dan inaan taageerino. sidaa daraaddeed waxaan leenahay halkii aan dhehayna response JSON keligeed noo soo console log kasoo saar waxaan leenahay response JSON dot search save and here only we see search movies. Okay, hadda waxaan haysanaa datadii markaas. si markaasi datadan aan u isticmaalno waxaan datada movieska ka dhigaynaa halkii markii hore ay ahayd markaasi JSON tan caadiga ah. waxaan update garaynaynaa datadan. Okay, waxaan datadan ka dhigaynaa markaasi haddii aan idhaahno set movies waxaan ka dhigaynaa response JSON tan aad haysato dot search. Okay, save and there we go, we get all movies. sidee bay macquul ku noqotay waxaan odhan inay dhacaan? hadda waxaan haysanaa dhammaan imageskii ka koobnaa war. Okay, sababtu waxay tahay get rid of this. kuwan waa iska tirtiri karnaa. hadda datadii aan ku haysanay movieska oo markaas ka koobnaan intaan keliya 4 ahaayeen waxaan u update garaynay response JSON dot search oo API-gii waxaan u bedelnay JSON. markaa sidaa daraaddeed markii la update gareeyo waxaa laga soo fetch garaysanaa iyadana poster title iyo year oo API-ga aan haysanay waxaa laga soo fetch garaysanayaa intaas. Okay.
aan iska tirtirno console logan. haddii aan ku bedelno qaybtan worka ah keliya maybe American save and dhano waxaan arkaynaa all American movies. Okay, haddii aan yaro sharaxno functionkan assign and await, ugu horreyn waxaan sameynaynaa function aan u magac dari doono get API. functionka markaasi wuxuu qaadanayaa assign. caadi ahaanba functionska waa laba, waa asynchronous iyo synchronous. Asynchronous waxaa badanka loo adeegsadaa markii aad data sugayso. Asynchronous markaad adeegsanayso waxaa qasab inaad adeegsato await keyword. waxaan sugaynaa datada inta ay nooga imaanayso. Okay, kadibna datadii markay noo timaado waxaan u bedelaynaa JSON caadiya. intaas kadibna movieski aan hore u haysanay waxaan u bedelaynaa response json.search. Okay, that is all. intaas kadib waxaan sameynaynaa markaasi componentigeena kale oo magaciisa loo yaqaano logo.js. logadan waxaan dhex dhigan doonaa keliya image. waxaan dhahaynaa imagekan sourcigiisa ha noqdo, waxaan soo gashan doonaa imagekan. Okay, waxaan hadda soo gashanay imagekan logo. haddii aan ku dhufano waa logadeeni. Okay, waxaan tegaynaa halkan, waxaan soo import garaysanaynaa imagekaas. waxaan leenahay import logo from, waxaan leenahay logo.png logo no logo save. haddii aan tagno movieskan waxaan sameyn doonaa class anuu magac dari doono header. classkan gudihiisa waxaan dhex dhigan doonaa laba component oo ah logada iyo qaybta search barta. aan dhex dhigano ugu horeyn maybe logo save and we have this logo. Okay, balse waxaan arkaynaa inay yaro weyn tahay. haddii aan nimaadno logadan waxaan ku daraynaa class aan ku haysano styling. waxaan ka dhigaynaa logo save and there we go. intaas kadib aan iska xirno logadan waxaan sameynaynaa haddana component kale aan u magac dari doono serg.js. haddii aan dhahno rfc waxaan soo return garayn doonaa keliya form ee inoogu guda jiro actionkan aan ka tirtirno sababtoo ah backend ma leh. formka waxaan dhex gelinaynaa input, typekiisu yahay text, placeholderkiisana wuxuu noqonayaa serg movie by name maybe. waxaan kaloo raacin doonaa button aan ugu magac dari doono markaasi serg save. haddaan imaadno moviesteena isaguna waxaan kusoo render garayn doonaa halkan logada oo labaduba waa headerka. Okay, halkaan aan dhex dhigaynaa serg. Okay, and there we go. waxaan haysanaa labadoodaba stylingkoodana way wada wataan. Okay, intaas kadib hadda waxaa inoo dhammaystiran UI-geena. waxaan sameyn doonaa qaybtan search barta. alright, haddii aan iska xirno movie listigan sida ujeedaan functionkeena waxaan usoo return garinaynaa qaab caadiya, balse anaga waxaan doonaynaa mar walba oo page loading dhaco oo datada xagga wax laga bedelo automatic datadeen inay wax iska bedesho. waxaan adeegsan doonaa hooks ay leedahay react.js oo loo yaqaano use effect. haddii aan use effect wax yar dul istaago, use effect waxaa loo adeegsadaa datada aad doonayso inaad soo saarto amaba ay kasoo muuqato UI-gaada mar waliba oo refresh la dhaho oo page loading dhaco. Okay, sidaa daraadeed waxaan adeegsanaynaa use effect. Okay, get rid of this. waxaan soo return garanaynaa markaas functionkan save naga tirtir minooma shaqeynaya sababtoo ah use effect isaguna wuxuu ka imaanayaa react. waxaan leenahay use effect
save. wuxuu u shaqeynayaa si isku mid ah. Alright, ugu horeyn waxaan samayn doonaa haddii aan halkan furno JSON datadan aan iska deleednoba uma baahnin hadda. Delete. Okay, waxaa arkaysaa inuu si isku mid ah u shaqeynayo. Okay, waxaan samayn doonaa use state kale. use statekan waxaan ka dhigi doonaa qaybta search barta. waxaan leenahay search value comma set search value ha noola mid noqdaan equal use state. ugu hore waxaan ka dhigaynaa empty. Okay, waxaan sameynaynaa intaas kadib labadan inaan u base gareyno componentigeena searchga. waxaan tegaynaa halkan probiska. waxaan leenahay search value ha la mid noqdo search value. Okay, waxaan kaloo u base gareyn doonaa waxa loogu update gareynayo. waxaan ka dhigaynaa set search value ha la mid noqoto iyadana set search value. set search value. Okay, save. haddaan halkan imaadno waxaan aqbalaynaa probiskaas. waxaan leenahay waxaad aqbashaa search value iyo weliba set search value. Alright, search value waa sidan. waxaan samayn doonaa valuega initialka uu yeelanayo. waxaan ka dhigi doonaa inputkan inuu noqdo kan oo hadda waa empty string. sidaa daraadeed waxaan leenahay inputkan valuega uu yeelanayo aan kala jarjarno. valuega uu yeelanayo waxaad ka dhigtaa markaasi search valuedan. Okay, intaas kadib waxaan doonaynaa mar walba oo change la sameeyo in valuega isbedelo. si aan u sameyno waxaan leenahay on change ha la mid noqdo arrow function. kadib aan leenahay set search value waxaad ka dhigtaa e dot target amaba event dot target dot value. event dot target dot value waxaa laga wadaa eventigan inputka ah targetkeeda value ku jiro oo wuxuu markaasi inoo soo qabanayaa valuega halkan lagu qoro. Okay, value uu horeyn wuxuu ahaa search value oo waxaa ku qornaa empty string. sidaa daraadeed mar walba oo change lagu sameeyo datada halkaas ku qornayd wax laga bedelo valuega waxaa laga dhigayaa wax waliba oo halkan lagu qoro. Okay, waxaan u baas gareyn doonaa halkan event save. haddaan fiirino hadda developer toolkeena ama componentgeena okay, waxaan arkaynaa mar walba halkan aan wax ku qorno in stateka uu isbedelayo. Okay, sababtoo ah wax waliba halkan ku qorno waxay kasoo muuqanayaan stateka initialka. That's works. waxaa laga yaabaa adiga componentgan inaan ku shaqeynin. waxaad u baahan tahay inaad soo download gareysto React Developer Tool. download this extension and it works. Okay, waxaan sameynaynaa intaas kadib inaan tagno moviesteena. waxaan doonaynaa qaybtan searchida ah inaan ka dhigno dynamic oo hadda waxaan arkaynaa film alla filmkan doonayna inaan u bedelayno. haddii aan u bedelno Spider-Man aan save dhahno. haddaan save dhahno hadda aan fiirino waxaan arkaynaa Spider-Man movies. wax waliba oo searchidan la gelsho film waliba oo searchigan la gelsho wuu soo muuqanayaa. balse waxaan doonaynaa searchidan inaan dynamic ka dhigno oo keliya uu soo muuqdo filimkii markaasi inputkan aan ka search gareyno. Okay, sida u sameyno waxaan sameynaynaa template literal ah si aan markaasi aan ugu dhex qorno JavaScript. halkan waxaan ka dhigaynaa like this. Okay, halkan Spider-Man halkan kasoo return gareynaynay waxaan dhihnaa $sign
waad arkaysaan sida ay isku bedeshay colorkii sababtoo ah waxay caddaynaysaa in halkan lagu qorayo javascript. halkan markaas waxaan ku qoraynaa search value-dan oo ah input 0 ah. mar walbo inputkaas 0 uu yahay waxaan u update garaynaynaa search value. initially ahaan search value waa empty, balse waxaa laga dhigayaa search value-da waxaa loo update garaynayaa wax waliba oo inputkaas lasoo geliyo. sidaa daraaddeed waxaan doonaynaa functionkan inaan u paste garayno search value. si aan u paste garayno ugu horreyn waxaan tegaynaa halkan, waxaan dhahaynaa mar walba waxaad soo return garaysaa functionkan una paste garay markaasi functionkan, kadib aqbal parameterkaas. haddaan isticmaali karnaa markaasi search value-da halkan paste ku dhahno. haddaan hadda save dhahno waxaan arkaynaa inayna waxba inoo soo muuqanaynin. sababtuna waxay tahay waxaan doonaynaa set movieskan inaan condition ku xirno, oo waxaan doonaynaa keliya inay soo muuqato response json haddii uu jiro. haddii uusan jirin ay empty tahana keliya ay empty ahaato. okay, si aan u sameyno waxaan leenahay if response json.search uu jiroba waxaad inoo soo bixisaa markaasi waxaad datada aad ka dhigtaa response json. save. haddaan hadda search garayno for now spiderman waxaan arkaynaa spiderman movies. haddii aan search garayno indian movies waxaan arkaynaa indian movies. all things aan halkan ka search garayno waan heli karaynaa. oh that is works. waxaan search garayn karnaa maybe chinese movies. china waxaan arkaynaa chinese movies. hong kong. okay, film alla filmka halkan ka search garayno waan heli karnaa. okay, sidee bay ku dhacda markaasi? waxay ku dhacda waxay tahay waxaan search value-da ugu horreyn aan ka dhignay empty string. search value iyo set search value labadaba waxaan u paste garaynay as provis search component. haddii aan search component-ga tagnana waxaan aqbalnay proviskaas labada ah, kadib value ku dhex qormaya waxaan ka dhignay search value oo ahaa empty string. waxaan dhahnay mar waliba oo on change oo lagu sameeyo oo markaasi la update gareeyo waxay ku qornaa waxaan sameynaynaa event oo ah markaasi eventigan inputka ah dot target dot value. value ku dhex qormaayo ka dhig markaasi search value mar walba. okay, intaas kadib waxaan sameynaynaa search value-dan inaan u base garayno functionkeena markaasi assign ah, oo waxaan doonaynaa mar walba oo markaasi datada halkaas lagu qoro inuu functionkan asigana ogaado. sidaa daraaddeed waxaan u base garaynaynaa as parameter. okay, that is it. waxaan search garayn karnaa maybe Iron Man, Hulkman. do you know Hulkman? okay, that is it guys. cashirkeena maanta intaasuu inoogu egyahay. haddii aad kooriskan dhamaysay waxaan rajaynayaa inuu in badan ku anfacay, sababtoo ah waxaan ka hadalnay mawduucyo aada muhiim u ah. haddii aad markaasi wax uun aad ka faa'iiday amaba ay jiraan wax kaa dhex guuxay aad jeclaan lahayd inaad fahanto, waxaan kaa codsanayaa commentiga inaad igu reebto. haddii aad kooriskan dhamaysato waxaad baratay waa maxay API, sida markaasi data looga soo fetch garaysto web server, sida loo adeegsado assign and await function. sidoo kale waxaad baratay use state, use effect. okay, sida loogu bedelo API-ga aad haysatay markaasi JSON, sida markaasi API-ga loogu filter gareeyo search barta. waxaan rajaynayaa in markaasi uu special ahaa projectigan. waxaan idinka codsanayaa inaad mar labaad iyo mar saddexaad subscribe ii saartaan, marka afraadna aad like saartaan videogan. waad mahadsantihiin. waxaan soo dhigi doonaa dhammaan markaasi repository-ga uu ku jiro filekan github-kayga. waxaan soo dhigi doonaa linkiga, halkaasaad ka heli kartaa codeka iyo imageska iyo weliba API-ga aan isticmaalnay. haddii aad sidaan u isticmaalnay aad kooreska u dhamaysatana waxay ku tahay experience fiican. waxaan kugula talin lahaa inaad wada dhamaysato oo aad adiga samayso practice garayso. that is all. I hope you enjoyed. maalin wanaagsan waxay ku tahay oo wanaagsan. intaan ku kulmi doona cashirkan cashir leex mid ah. see you again guys.